khiyaarta sharafta leh hadda waxaan rabaa inaan idin tuso hotelka aan ka deganahay hotelka waa isku xirka halka hadda dhinaca waxa ku yaala xaggani waa buulkii hotelka xaggaasna waxa ku waxaad ka daawan kartaa vlogan Cabdi Eid Cabdi Eid ما شاء الله magaalada dalxiiskan soo galnay hadeertan maanta waxaan joognaa dalka Ingiriiska hotelka Marriott oo ku yaala magaalada Bournemouth dirina qaabka uu yahay iyo inaad ku dalxiis karto dalka Ingiriiska wadanka gudihiisa aad mar walba u baahnayn inaad aado dibadda oo diyaarad qaadato si aad u qaadato waqti fiican waxaan soo galnay magaalada gudaheedii waxaan soo galaynaa hotelkii Marriott Hotel Highcliffe Marriott Hotel wayaan wuxuu ku yaalaa badda jambigeeda sida idiin muuqata waxa badii halka idinkaga muuqda si doomihii u kuwa aanu galaynaa hotelkii inkiisii halkan You can fly the top. ما شاء الله وفيو أن عادي أهين عادي ما Oh my god. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولي waxaan ku wada jirnaa booqashadeenii aan ku nimid magaalada Bournemouth dalka Ingiriiska waxaan taaganahay qarka xeebta soo dhaw wax yar halkan waa badii halkan waa xeebtii mar dhow ayaan tagi doonaa waan ku soo dabaalan doonaa gadaasheeda waxa ku yaala hotelkii waa Marriott Highcliffe Hotel la yiraahdaa xeebta qarkeeda ku yaala magaalada waxa la yiraahdaa Bournemouth sida ay sheegay waa magaalo dalxiis run ahaantii halka haddaad ka waxa ku yaala waa badii all the way down kana waa magaaladii marka dad badan waxay aadaan wadamo fog bay aadaan shay u dalxiis tagaan laakiinse hadii aadan awoodin taas waxaad joogi kartaa dalka Ingiriiska oo aad ku dalxiis kartaa so marna waxaan tusi doonaa hotelkayga siduu yahay barkad baa ku taala barkada Dubaasha iyo guud ahaan jawiga aan ku jirno muddada aan halkan joogno soo hayloobin inaad subscribe garayso channelka aad like saarto si dad badan u gaaro aad share na garayso sidii ay Soomaalida kale oo wadanka joogtana ay uga faa'iideysato ila socdo khiyaarta sharafta leh hadda waxaan rabaa inaan idin tuso hotelka aan ka deganahay hotelka waa isku xirka hotelka gudihiisii ayaan soo galnay waa Marriott Bournemouth maadaama aan nahay Soomaalida dad familiyadeenu badan tahay magaaladana loo yimaado magaalo dalxiis waxaan rabaa inaan idin tuso qol kamid ah qolalka
family roomska ah kii qolalkan deganaan qol ka mid ah. halkani waa albaabkan ka soo galay. hadda dhinaca waxaa ku yaala sayfin haddii aad wadato alaab muhiim ah. halkaa waxaa kugu jira shukumaanada anaa isku dhex yaaciyay sababtoo ah mid ka mid ah ayaan salaada ku tukaday. halkani waa meeshii kabaha la dhiganayay. halkan waxaa taala buugaag kala duwan. buuggan haddaan soo qabto The Book of Mormon, diinta Mormonka ayuu xayeysiinayaa. No thank you baanu leenahay. halkan waxaa kugu taala muraayad aad istaylka ku saxayso. haddaan hoteelka gudaha usoo galno labadaas sariirood ayaa taala. waa family room. halkan waxaa ku saaran telefoonkii aad kula xiriiri lahayd receptionka, buug iyo qalin aad ma garanaysaa aad wax kusii qoranayso intaada aad wicin. halkan waa sariirihii. halkan waxaa ku yaala note lagu geliyey meesha. wuxuu kuu sheegayaa xilliyada aad quraacda iyo waqtiyadeeda iyo waxyaalaha ay ka kooban tahay. halkan waxaa ku yaala kursi. halkan waxaa yaala flat screen oo adiga oo sariirtaada jiifa aad daawanayso. haddaan galo dhinacan, kan waa suligii gudihiisii. halkan waxaa ku yaala body lotion. sidoo kale halkan waxaa ku yaala saabuun iyo shukumaano. maasha allah. haddaan furo dariishada, halkan waxaad ka arki kartaan viewga hoteelka surroundingisa. hoteelka magaciisii si haddii aad ugu baahato inaad hoteelkan aad timaadid, magaciisa halkaasuu ku yaalaa. xaggani waa buulkii hoteelka. xaggaasna waxaa ku yaala baar. saa ujeedaan waa baarkii. anagu kama faa'iidaysanayno sababtoo ah waa alcohol waxay serve garaynayaan. xaggaana waa ma duubi karo meesha ii sheeg buulka sababtoo ah dad baa ku jira. laakiin waa kana kuraastaana taala. kan waa biyihii. buulka ma duubayo sababtoo ah dad ayaa ku jira. marka hoteelkan waxaa la yidhaahdaa sidaan hore idinkugu sheegay Marriott Hotel. wuxuuna ku yaalaa magaalada Bournemouth dalka Ingiriiska. haddaad rabto inaad qaadato guriga yani wadanka vacation, halkan ayaad imaan kartaa. wakaasaa buulka waa iga dambeeyaa. badiina waa taasaa dhinacaasi xigtaa. halkaa court baa ku yaala. sidaad ujeedaan halkan waa badii. halkan kuraastii relaxing haddaad rabtid inaad samayso kale kuraastii ugu jiibsanayay. maanta cimiladu xoogaa waa cadar ila socda. Albert, who are you living your life for? Huh? Who are you living your life for? Who's controlling your life? akhyaarta sharafta leh. sidoo kale meeshan waxaa ku yaala baarar iyo maqaaxiyo haddii aad rabtaan inaad cuntaan ice creamkii meelihii lagu gadayay.
dukaamo aad ka gadan karto gearkii aad badda ku joogi lahayd. qaybtan waa qaybta ciyaalka ugu ciyaarayo hot dogii kareemadii weli waxaanu ku sugannahay magaalada Bournemouth ee dalka Ingiriiska waa magaalo xeebeedkii aan idin soo tusay halkani waa qaybtii entertainmentiga ciyaalka ice cream ada u baahantay halkaas aad ka soo gadanaysaa maqaaxiyi baa ku yaala